dhawaaq ka baxaya qalbiyada haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Haweenkan ayaa isugu soo baxay degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir iyagoo ka dhiidhinaya fal kufsi iyo dil ah oo lagu geystay magaalada Muqdisho. Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd 19 sano jir, nolosha Urdun oo ahayd بوليسكا ee ilaa gabadha dabaqaasay ka soo dhacday oo boliiska baawurkooda lagu qaado oo meesha lagu geeyo waxa ayaan daro ah inuu saaka VOA ka yiraahdo ma cadda gabadhu inay dabaq ka soo dhacday gurigii dumay ay soo tusi karaa gabadha ku dhacday waxa idin tusin karaa dadkii ehelka ku soo kor dhacday oo dhahay balkoonka nagu soo dumay aan dhahnay aan idin tusin karaa idin geyn karaa ma fahanteen hadda marka anaga damiirkeena iyo aan muufin habeenkii koowaad waxaana la yiri 6 qofood ay idin xiran oo la soo qabtay shalay marka uu nimid waxaana la yiri 4 qofood ay idin xiran waxay tahay qof walba iska fahmi kartaa haddana saakin markaan ka maqalnay meeshii ee VOA-da aan ka maqalnay ninka oo hadlay oo boliiska markii aan maqalnay hadalkiisi damiirkeena iyo shucuurteena marka ayna muujino damacnay waxaan ugu soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabaday nagu rideen wax walba sila waana dileen askarti waana dileen haddana waana xira gabdhaana naga xiran marka meesha hor istaagnay oo shucuurteena muujin rabnay oo mudaharaadaynay wayna hor istaageen mudaharaadku wayna hor istaageen cadaalad rabnaa xamdi cadaalad rabtaa gabdhaha bistoola lagu garaacay nin oo mas'uul ah gabadha inta qabtay oo baawurka lugtiisa ku dhuftay ayada wiifaysa ma fahanteen oo laami ku dhex qaawiye cadaalad rabnaa cadaalad waxaan banaan baxa walaashay xamdi oo dhibaato lagu gaarsiiyay hotel ku yaala waa bari yadaas ugu taalo waxa igu dhigay ciidanka degmada waa bari oo taliyo lagu fasaxay waxaan ka cabeynaa walaasheen inay cadaalad hesho aan rabnaa haddana gabdhaha Soomaaliyeed waa dhibanahay dhibka aan ku jirno Ilaahay naga saaro ragga xun Ilaahay naga saaro Ilaahay waxaan ka baryaynaa in aan helno cadaalad xamdi ma antayto marka aan soo banaan baxna shucuurtaana muujimaagnay waana la jirdilay 3 gabdhood waxaan looga xiray saldhiga waa bari aniga yadaas ugu taalo oo daanka iiga taalo garkoostiisa waxa ugu dhigan nin ciidan taliyo iguma dhigin nin ciidan ay ugu dhigan asigoo ka daba orda wali taliyo gabdhaha dhaafdhaa waxaan ka rabnaa dawladda ku meel gaarka oo dawladdu waxaan ka rabnaa inay gabdhaha yariiska oo la kufsana oo jirdilka loo geysana oo la dhibaataynayo wax ka qabad haddii wax ka qaban karin maxamed cabdullaahi farmaajo xilka ka wareego macallin baan la kufsado hana la dhibaateeyo magaalada Muqdisho ku rafaadsanaano ana nabadgeliyana dawladda